waxaa maanta magaalada Hargeysa ku soo guryo noqday gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro waxaana ku soo dhaweeyay mudaarka magaalada Hargeysa ee Egal International Airport saraakiisha sarsare ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxaana warfidiyeenka kula hadlay mudaarka magaalada Hargeysa ee Egal International Airport mudane Cabdilqaadir Jirde gudoomiyaha ku-meel gaadhka ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani mudane Cabdilqaadir Jirde waxaanu ku soo dhaweeyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro magaalada Hargeysa waxaana kamid ahaa hadaladii Cabdilqaadir Jirde inaan halkan ku soo dhaweyno gudoomiyaha xisbiga iyo Faadimo Saciid oo wafdi dibadda ku maqnaa shirar ka soo qayb galay waxa kale oo ina sharaf weyn oo aynan ku soo dhaweyno halkan inaan maalintii hore la kulmin hogaamiyaha xirsi gudoomiye ku-xigeenka koowaad Cabdirasaaq iyo xogayaha Khadar oo iyana cimradii ka yimi iyana soo dhawaada ayaanu leenahay sidoo kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa isaguna warbaahinta halkaasi kula hadlay waxaanu ka waramay maqaamka ay Somaliland waqti xaadirkan ku leedahay ama heerka ay ka taagan tahay waxaanu sheegay in Somaliland xiriirkii caalamiga ah ee ay la lahaayeen wadamada caalamka waqti xaadirkan hoos u dhacay waxa uu sidoo kalena arrimo isbarkan hawada u mariyay komishanka doorashooyinka Somaliland waxaana kamid ahaa hadalada mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro mid waan xusayaayo waxaad moodaa maqaamkii arrimaha dibadda ay ka joogtay Somaliland inuu hoos u dhacay muddooyinkii dambe ee xukuumadan kala dambeeyay joogeen laakiin waxaan looga baahan yahay dadaal intii ka badan inaynu samayno guud ahaan shacbi iyo axsaab iyo qurba joog dhammaanteen xisbigu wuxuu diyaar u yahay inuu ka qayb qaato oo si buuxda uga qayb qaato doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka hase yeeshee waxaa ka warqabtaan in xisbigu uu kalsoonidii kala noqday guddiga doorashooyinka qaranka marka sidaa daraaddeed sinaba u suurtogeli mayso in commission lagala noqday kalsoonidii doorashooyin dambe inoo qabto waa Mustafa Axmed Samakaab wararka STN TV gudaha magaalada Hargeysa